raggii weeraray hoteelka Naasa Hablood labo ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxa la xaqiijiyay inay hayeen ilaa 6 dagaalame kii ugu horeeyay wuxuu ku dhintay qarxii gaariga ee lagu dhuftay albaabka hore ee hoteelka Naasa Hablood labo ee degmada Xamarweyne waxaana hoteelka gudihiisa galay 4 kamid ah dagaalamayaasha afartaasi kamid ah ayaa mid kamid ah saqdi dhexe xalay hoteelka dhaxdiisa isku qarxiyay kadib markii ciidanku ay toogasho u geysteen 3 kamid ah dagaalamayaasha ayaa la qabtay oo hoteelka meel dibadda ah ka aaday markii ay rasaastii ay ka dhamaatay sida ay noo sheegeen qaar kamid ah saraakiisha ciidanka dawladda qofka shanaad ayaa la sheegay inuu waday gaari ku qarxay meel ku dhow hoteelka ex xaruntii hore ee baarlamaanka lama ogo inuu dhintay iyo inuu baxsaday haddaba 3 rag ee dagaalamayaasha al-shabaab ay hoteelka gudihiisa u galay oo ciidamadu amnigu ay qabteen waxa la sheegay in ay hoteelka meel kamid ah ay ku dhuumaaleysteen waqti dambe markii ciidanka meel kamid hoteelka ay soo galeen qaybta sanana ay gidaaro jabsanaa ay ka baxeen kadib xaafado ay galeen waxaana markii dambe u dhaceen guri ay qoys deganayeen qoyskaas guriga degan waxa aabba ka ahaa gaashaanla sare Ali Cabdi Jubbad oo kamid ah taliska guud ee ciidanka Soomaaliya waxa uu sheegay in xilligaasi ay jiifeen ragaasina qoriyo rasaastii ay ka dhamaatay ay ku qabteen mid kamid ah wiilashiisa oo banaanka guriga jiifay kadibna ay ku amreen in uu hago oo u toosiyo wadooyin ay maraan laakiin mar dambe uu isaga ku soo baxay kulana taliyay in waqti dambe ay tahay ay jiiftaan dharka iyo ciidankaasi hubkii ay wateen loo xareeyo markii waagu uu baryana la wareejiyo laakiin way qaateen taladaasi markii xaroodeen kadibna waxa la hadlay laamaha amnigu fariin kula wadaagay oo halkaasi uu durba soo gaaray oo halka ka kaxiyay 3 rag ah ee al-shabaab oo mid ka mid ah dhaawac u ahaa iyo hubkii ay wateen laakiin waxa loogu abaalguday saakay in la kaxeysto qaar ka mid ah caruurtiisii xilliga halka ku sugnaa keenin Muqdisho ayuu u waramay waxa wareystay wariye Maxamed Axmed Tuuriye Bismillahir Rahmanir Rahim anigu oo ah gaashaanla sare Ali Cabdi Jubbad Soomaali ah kana tirsan taliska guud ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan maanta fajac iyo farataag ba igu noqday qaraxyadii shalay iyo howlgaladii shabaabku fulinayeen shalay galab ee Naasa Hablood xala saqdii dhexe ciidama al-shabaab oo baxsada oo dawladuna ay bacsanayso baa u soo dhacay aqalkayga oo u dhow soona godka Jilicow dabadeedna wiilaan dhalay oo banaanka jiifay bay qoriyo ku qabteen 3 nin 2 nin oo kamid ah nina dhaawac yahay oo banaanka ku haray laba qoriyo markay ku qabteen waxay yiraahdeen waxaanu ka rabnaa inaad na tusto jid aanu ku baxno dabadeed waxa dhacday meeshii inaga ku soo wada baxnay waxaan yiri war maxaad rabtaan annagu shacab baan nahay waxaanu rabnaa bay yiraahdeen jid aan ku baxno waxaanu ku niri haddaad jid rabtaan xilligan leedima bixi karayo cabsi iyo walwal baa dadkii wada gashay dareeska dhiga qoryahana iska dhiga dharkaana xirta waa leedin badbaadinayaa intii aan saas markaan ku niri baanu waxaanu soo qaban waxaanu hoos ka dirsanay ciidamadii markay noo yimaadeen qoryahoodii 2 qori iyo 3 nin iyo waxaan wareejinay booshaskoodii iyo bombadii ay siteen halkii aanu ka sugeynay inaan nala abaal mariyo oo la yiraahdo waa mahadsantihiin baa maanta waxaan nala yiri waad xirxirantihiin waayo shabaab baad dharka bedesheen shabaabka dharka aanu ka bedelnay naf baa noo geysay maataana leeyahay dadkii waa dhibaataysan way hubeysnaayeen lamana qaban lahayn haddii maanta ayna dharka bedeli lahayn ciidamada dawladana aan u yeernaa iyagoo hubkooda haysta dagaal baa ka dhici lahaa maatada iyo dadka meesha joogana way ku la'aan lahaayeen ciidanka dawladana dhib baa soo gaar lahaa haddaan u fududeynay oo niri war dareesaan xid oo dharkayagii annagu aan ilmaha lahayn aan u xirnay haday macawistaay haday surwaal taan u gelinay dawladina aan hoosta uga yeeranay ma waxaan ku mutaysanay halkan darajiya maamul iyo abaalmarin sugayni miyaan ku mutaysanay walaalayaal shacabkii Soomaaliyeed bulshadii Soomaaliyeed golayaashii dawladdu madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu inta damiirka dadnimadaha ma waxaan ku mutaysan in anaga caruurteeda la xilxilo oo la yiraahdo shabaabka maxaa dharka uga bedesheen arrintaasi waa arrin xaaraan ah waa arrin aan filan shacabkuna ha ku baraarugo hana ogaado in meeshaasi ay joogaan shabaab kale oo innaba halay kaatay shabaabkaas la qabtay ka damqaday ka xumaaday inay joogaan hal la ogaado madaxweynuhu waa kii ku ballan qaaday 100,000 baan siinaynaa cid alla cidii soo sheegta
ballanqaadkii madaxweynahana waa la jabiyey annaguna hubkoodii baanu keennay ayagii baanu soo gacan gelin hubkoodii baanu gacan gelin ayadoo dhiig nooga dhiman qofna nooga dhiman ayaanu keen markaas annagii waxaan mutaysanay in la xirxiro waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo dadka idin yimid ee hubaysnaa sideed ku ogaateen adinku inay shabaab ahaayeen maxaad ku aaminteen sideed dharka u siiseen hubka sideed uga dhigteen horta dharka waxaa lagu bixiyey cabsi baa lagu bixiyey bacdama ay habeen madow qorya nagu qabteen jidaan rabnaa yiraahdeen baanu nidhi hadalka waa u qaboojina idinma sii karno jid cid oran kartaa ma jirto nin qori haysta waxaanu nidhi jid waa la idin siinayaa ee isdajiya waagu habaryo dharkana iska bedela qoryahana halkaa ku tiiriya iyo waxaad wadataan dharkiiba iska bedeleen dharkaas aasaasan ku siinay qoryahana aanu ku siinay ee aan uga qaadnay ciidankii dawladda aanu ku wareejin waxaan ka reeban anagoon jirin yaa adiga yaa kula ogaa markii aad u wacaysay ciidamada markii aad raggan ka dhigaysaan waxaa ogaa xildhibaano canab baa deris nala ah waxaa deris nala ah niman xildhibaan ah agaasimayaal baa deris nala ah dhammaanteen ciidamadoodii baaba ku soo baxay meesha ragga deriska kula ah ee xildhibaanada ayaa mid iyo laba magacooda ka sheegay canab baa kamid ah canab xasan baa la yidhaha malaynaya canab gabar la yidhaahdo xildhibaanada oo guddiga amniga ku jirta golaha baarlamaanka ayaa kamid ah ciidamadii baan isku keennay markaasaan warkaale hala qabqabto oo nimankan aan qoryaha waa ka qaadnay aan dawladda ku wareejin saasaan nabad sugidda ugu wareejin yaad ku wareejiseen qofka ninka aad u wacdeen ee taliyaha ayaad tirahdeen ciidamadan la wareegiyuu ahaa wuxuu ahaa nin hadeertaan aan magaciisa anigu haynin laakiin saaka inkay godka aan ugu tagi oo anoo doonaya abaalmarin iyo darajo iyo dalacaadba iyo dhaqaalaba oo leh kuna faraxsan shacabka Soomaaliyeed si ay u dhiiradaan ugu faraxsan war shacabka waliba saako dhan waxaan la war shacabka idinku sheega waxaad aragtaan annagu hubeysan ka dhignay nimankii hubkii markii aad u tagtay muxuu ku yiri maxaad say ku wada hadashay saaka wuxuu yiri madaxda saraal idin gudbinaya ilaa wasiirka amniga gaarisa waa yahay baan yiri deetana waxaanu la kulanayba carruurteedii oo la xirxiray iyo waxaan imid maaragtay gurigii oohin iyo qayla ka taagantahay yaa xiray carruurta godka jilacow nimanka madaxda ka ah baa xirtay waliba sargaalkii asaaka aan isaragnaa xiray anu wada magaciisa wallahi ma xasuusto laakiin muuqiisaan hayaa maxaa loo xiray baa la yiri carruurta waxaad idin tahay adigu hadii carruurta laga shakiyo in baaritaan la marsin karo dayib waxaanu diyaar u nahay in la baaro annaga diyaar laakiin maxaa la baariya aniga baaristu inay iga bilaabatay aniga gaashaan la sira inay baaristu iga bilaabato waayo anaaba amray nimanka hubka ka dhigay aniga ayaa amray laakiin carruurtii in la xirxiro guriga joogtay waa xaraan qadcana waa arin aan laga asmicin ummadda Soomaaliyeed dibad iyo gudiba aan kicinayo madaxweynahana aan dareemin hadii arinta iyada aan wax laga qabana beel walbaaba iskeed ha isku difaacdaan anigu leeyahay markaa kadib reerka iyo sharcigan jabinayna ma u sheegtay raggii ilmaha xiray ee ciidamada godka jilco jooga taliyaha u ahaa in adiga baaristu ay ka bilaabanayso aan carruurta laga bilaabin waa xara dadka waaweyn baa baarista laga bilaaba baaristu haday wax la baari maxay gurigan u soo galeen maxay hotelka shalay la weeray ay u galeen hadii su'aashaas la isweydiinayo gurigan maxay u soo galeen haday tahay maxay u galeen hotelka maxay dadka u leynayeen waxa weeyaan gurigan waxay u soo galeen ammaan ayaga cararayo baqa cararaya gurigeyguna waa guri danyar waa guri gidaarkiisu iska gaaban yahay waa guri loo soo dhici karo waa guri laga filan karo maartay in lagu dhuunto laakiin guriyaha kale waa weyn ganjaleey waa weyn oo xiran beliin maxay idinku soo dhaceen nalamoolka hadii ay soo dhaceen anagu ma inaan qarin anaaba hubkii si cilmiyeysan uga dhigay ana ayri qoryaha tiiriya dharkan xirta dharkii wiilashaydan si way marka carruurteedii loo xirxiraya hubkii iyo dawladii waan ku wareejiyay maxaa dhacay ilmaha laga xiray waa imisa wiil baa laga xiray midna raadkiisa lagu jiraa waa maxay midna waa lagu raad jiraa baa leeyahay oo waxa leeyahay waaba baqa cararaya wiilkii kalena telefoonka daba diro abax marweynaan jooga mahad waa la xiray maxay tahay waxaas ilmihi wada cararaya argagax ku dhacay maxaad doonaysaa ugu dambeyn waxaan doonayaa in la soo farageliyo arrintaas oo si emergency saacad inuu wiilkaygu sii xirnaado ma doonayo waayo wiilkaygu aniga qiraya waa ninkii hubka soo xareeyay waa ninkii ay ku soo hormareen qoryaha nagu wada qabteen oo yiraahdeen bulshada oo dhan baa marqaati ka wada ah carruurtii iyo dumarkii baa marqaati ka wada ah arrinta iyada ah marka anagu haddaan shabaab nahay waxa weeye baab gaar oo dawladda baariseed ayaa jira inay noo baaratay ahayd laakiin in laba hala ekaatee inay dhiirigeliyaan inaan shacabku dib dambe waxba u sheegin bay tani keenaysaa